aroos buu ahaa saakayuu gabar doontay oo yani la soo siiyey markii ay ka soo laabteenna oo gabadhii la soo siiyey kadibna maanta waa meyd waa dhintay waxa way malakamoodku xishood male haddii amarku u dhaco waa u dhacay aroos buu ahaa iyo farxad baa jirtay iyo waxaas ma jirto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan sida aragtaan shil baa ka dhacay waxaana ku dhintay hal qof gaarigan iga dambeeyo oo burburay sida aragtaan waxaa saarnaa afar qof afarta qof oo gaarigan saarnayd hal qof aa dhintay laba qof dhaawac waaye hal qofna waa uu roon yahay digniin marka waxaan halkan ugu digayaa dhammaan dadka waddada madoogaashe ilaa iyo gaarisa isticmaal dhexdooda yacni waddadan weyn oo madoogaashe ilaa iyo isticmaalo gaarisa haddaadan aqoonin waddada ama horey aadan gaari u wadin waxaa fiican inaad aad isku ilaalisid sababtoo ah waddadan way jarjaran tahay oo roobihii ama biyihii aliino ayaa waddada jarjaray sida aragtaan laamiga waxaa go'an sayd dhanaa go'an qofka markaa isoo isleh in seedkaaga haysataa socoasoo isleh oo haween ay tahay waxaa laga yaabaa oona ordaya qofkaas 100 iyo ka badan ku socdo halkan inuu ku imaado waa qofka waddadan aan garanayn waay dadka garanaya waa okay laakiin dadka waddadan aan garanayn in badan ay waddadan ka go'an tahay waxaana gooyey roobihii daraad ee aliino roobihii weynaa ee daadaha watay waddadan saa u jarjaray kolley dawladda waxaan rajaynayaa in ay waddooyinkan ama muuqaalkan arki doonto waddadaana meelaha sidaanoo kale u go'an ama digniino loo samayn doono oo micnaha qofku siduu u garto intuun imaanin ka hor waddada digniino loo sameeyo xitaa at least intii laga dhisay marka waxaan leeyahay dadka aanan garanayn waddada madoogaasha ilaa iyo gaaris inta u dhexayso ha isku soo halayn adoon garanayn waddada